بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Najma Maxamed Sheekh Umar Qarambila runtii waxaan maanta ku faraxsanahay inaan sanad kadib wadankayga dib ugu soo laabtay waxyaalaha farxadda leh ee ciidda leh ee quruxda leh ee qiimaha leh ee soo jiidashada leh ee runtii aan la kulmay markaan muddo sanada wadanka aan ka maqnaa runtii waxa weeye bilicda iyo isbedelka dhacay ee wadankeena ka dhacay ee caasimadda wadanka Soomaaliyeed Muqdisho ka dhacay runtii goobaha taariikhiga aan booqday ee runtii isaameeyay habka loo qurxiyay ee runtii isbedelka guud ee wadanka socda runtii kaas wuxuu ahaa waxyaalaha aadka ugu badan ee soo jiitay dhalinyarada Soomaaliyeed oo intay galabkii soo labisteen nabad iyo xasilooni ku damaashaadayo sawiradoodii iyo muuqaaladooda iska duubaya runtii taasi waa wax aad loogu farxo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan xukuumadda oo u sareeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha wadanka iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay horumarka iyo bilicda iyo xasiloonida wadankeena runtii taas waa mid loo soo xiiso bahaliyo badan oo hal sano aan qabay markaan wadankayga cadaan ka soo degtay runtii waxaan dareemay farxad aad u tiro badan horumarkii la sameeyay farqiga u dhaxeeya maalintan tagay iyo maalintan runtii farq weyn u dhaxeeya waxaan ka sii dabageenayaa hambaliyada maalmaha xurriyadda oo runtii lagu jiro aniga maalmaha xurriyaddu ma dhamaadaan mar walba waa iska faraxsanahay maadaama wadankayga aan joogno ku soo laabtay waa salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku joogaan noolaada waa jirtaane buuraha surba u dhee kana Soomaalinimo gobtuna si way martaa haddana si xariimati abartuna waa sunnee hadduu jiro saban xumaan waxa xiga bari samaan sagsaguna waa dhammaan gaalol samada jiro salkuna warorsayay ayaan saba kula dhasho qabkaygu masuuli karo samada calanka kula dhan ayaasan ka taagi faray adkay soo samir lahaw bilaha soonka ifaray